السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن دمان داوديال halka aad inaga daawanaysaan waa Som TR TV kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo waraysi kula yeelan doono siyaasi Axmed Cabdullaahi Cilaal oo ah siyaasi Soomaaliyeed ahna la taliyaha mashaariicda ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubin kamid ah golaha dhexe ee ururka siyaasadda ka ee Puntland موضوع عن كوريسون دونو سياسي وحو نقون دونا فدرالك iyo khilaafadka soo noqnoqda mudane Axmed kusoo dhawow Som TR TV wadawahay Jabir aad baan kuugu mahadcelinayaa dhamaan adiga iyo shaqaalaha kale ee TV-ga Som TR TV aad baan ugu dhawahay aad iyo aadna u mahadsantiin adoweyn waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee waqtigaaga inoogu soo hurtay Axmed ugu horeyn waxaan ku bilaabi doonaa sidaynu ognahay khilaafaadka soo noqnoqda ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ma is oran karnaa hanaanka federaalka ayaa sabab u ah Jabiro horta run ahaantii hanaanku federaalka waxay la tahay inuusan sabab u noqon karin laakiin ay dhici karto sababta weyn oo ka dambaysa khilaafaadka soo noqnoqda inay tahay sharciga ama qawaaniinta wadanka u taalo la baalmaro oo laga yaabo cid kastoo markaa ay qusayso inay dana khaas ah oo iyadu ay leedahay xoogaa ka xigsato sharcigii saxda ahaa sidaa darteedna uu yimaado isafgaran waa iyo khilaaf xaaladda maamulada markii aan eegno ma kula tahay in ay ku shaqeynayaan hab federaal ah sideedaba dawladda hadda habka dawliga ee Soomaaliya hadda ka shaqeeya waa hab federalism ah hanaanka Soomaali maanta ay ku heshiisay kuna shaqeynaysa waa hanaanka federaalka ah wixii ka khaldamana dabcan waxay u badan tahay khaladku inuu dawladda kore ka yimaado maxaa yeelay shuruucda federaalka dawladda kore baa laga rabaa inay sahasho ay kor ka yimaadaan maamuladuna ay kula shaqeeyaan marka waxaan isleeyahay waa lagu dhaqmaa laakiin runtii dhib badan baa ka jirta maadaama laga yaabo qolo walba inay dhan u leexiso oo sidii mataqaanaa saxda ahayd aan loo wada hirgelinin haddana kolley habdhaqanka dawliga ee dalka hadda maanta ka jira waa federal system isagaana lagu dhaqmaya waxaad ka dhawaajisay in aan si sax ah loogu dhaqmin labada dhinac federaalka iyo maamul goboleedyada ama dhanka kale haddaan u dhigno xubnaha dawladda federaalka ka midka ah yaana ku dhaqmin wallahi systemka federaalka ah waa system ballaaran waxa la rabaa isxukunka iyo maamulka laftigiisa maamul goboleedyada markiisa horeba inuu ka soo bilowdo grassroots inuu ka soo bilowdo hoos in laga soo bilaabo maamul walba yani maamulada dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka in dadkeedu ay maamulka soo doortaan madax banaani ay jirto markii la soo dooranayo maamulada way dhacdaa maamulada qaarkood in dawladda Soomaaliya aad iyo aad u manipulate garayso oo ay ku lug leedahay cidda soo baxaysa iyo cidda la dooranayo laga yaabo in marmarka qaarkood dawladdu abaabusho dawladda federaalka taasina ay keento in uu maamulkaasi dawladdii la shaqeeyo laakiinse waajibaadkiisii state ahaan iyo federaalkaba uu marmarka qaarkood dayaco aad baad u mahadsantahay Axmed markaan eegno nidaamka federaalka dad badani oo Soomaaliyeed waxba kama fahansana goorma ayuu Soomaaliya nidaamka federaalka ka hirgalay nidaamka federaalka Soomaaliya run ahaantii intii ka dambeysay dagaalkii ahliga ahaa ee Soomaaliya ka bilowday 1991 shirar badan baa dhacay oo la rabay in Soomaaliya iyo dawladdii Soomaaliyeed dib loogu soo yagleelo meelo badan baa la isugu tagay sida Djibouti oo dhowr goor maxaan ku iraahdaa Soodare Imbagati meelahaas oo dhan waxaa la oran karaa nidaamka federalismka
wuxuu noqday xalka keliya oo Soomaali ay mataqaana dawladnimadeedii iyo qarannimadeedii dib ugu soo ceshan karto oo la isku afgaran karo dabcan waxaan isleeyahay wixii ka dambeeyay dagaalkii ahliga ahaa wuu jiray mataqaana qorshaha in wixii markaa ka dambeeyay Soomaaliya ay noqoto jamhuuriyad federaal ah si mataqaana aysan u dhicin dhibaatooyinkii hore oo Soomaaliya hore uga dhacay oo 1991kii dalka oo dhami uu ku burburay waxaan oran karaa de wuxuu soo bilowday oo soo xoogaystay wixii laga soo bilaabo dawladdii Carta lagu soo dhisay oo madaxweynaha ka ahaa mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan aad u weyn mudane ilaa iyo hadda qaybtee ayaa la is oran karaa dalku waa ka federaal ama maamul goboleedkee la is oran karaa wuxuu si sax ah ugu dhaqmaa nidaamka federaalka tusaale xagga qaanuunka xagga canshuuraha iyo ciidankaba waayahay kelmadaas maadaama aad iigu soo celcelisay horta Soomaaliya runtii maanta waxaa gooni ka taagan maamulka gobolada waqooyi galbeed horey loo oran jiray loo yaqaan Somaliland oo aan la xeer ahayn markan aan la soconin systemka federaaliga ee Soomaaliya inta kale waxa ugu daaweyn uguna ballaaran dhanka resource-ka ha noqoto ama dhanka dhulka iyo bulshada ha noqotee waxaan filayaa waa maamulka Puntland waxa la oran karaa maamulkaas ayaad moodaa had iyo jeer inuu u badan yahay ama laga yaabo inuu awooday inuu buuxiyo shuruudihii federaalka tusaale ahaan in uu jiro mataqaana ay jiraan institutionski dawliga ah oo loo baahnaayo dhan heer state in mataqaana amni ahaan iyo siyaasad ahaanba xasilooni ay ka jirto aadna isleedahay de waxaa lagu dabaqaa markii la eego mataqaana wax soo saarka iyo canshuuraha iyo dhammaan qaybaha kale oo mataqaana maamul markii la fiiriyo waxaa la oran karaa yani stateyada hadda xubnaha ka ah dawladda federaalka stateka ugu aad moodid inuu yani ku taagan yahay wadadii federaalka ayna u saamaxayso jiritaankiisa oo ka horreeyay stateyada kale iyo resource ahaan iyo dhul ahaan iyo security iyo institutionski oo dhisan waxaan oran lahaa Puntland baad moodaa laakiin dhinaca kale waxaa la oran karaa dhammaan stateyada hadda maanta jira Jubbaland koonfur galbeed maxaan ku raahdaa galmudug waa ku dhaqmaan waana uu ka jiraa xogaa waxaan isleeyahay waxaan weli fariisan maamulka Hirshabeelle oo maamulada uguna dambeeyay xoogaana dhanka amniga iyo deegaanada uu maamula aysan weli isku toosnayn marka de inahaasaan filayaa inay jawaab ku filan tahay su'aasha haddii aan ku weydiiyo nidaamkan federaalka ah Soomaali badan waxa ay qabtaa in ay iyagaba dooranin uu yahay mid loo yeeriyay ama meel loogu qoray kadibna la yiri isticmaala ma kula tahay in uu xal u yahay nidaamkan federaalka Soomaalida nidaamka federaalka waxaan filayaa ma ahan oo kaliya inuu xal u yahay ummadda Soomaaliyeed laakiin inuuba lagama maarmaan u yahay ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay Soomaaliya way soo martay dawlad central ah oo xoog leh dhibaato badan baana laga dhaxlay waqtigii ay jirtay tusaale ahaan dawladdii militariga ahayd 21 sano ay waddanka xukumaysay haddii aan tusaale u soo qaato gobolada dalka qaybo kamida oo runtii ballaaran sida hadda Puntland oo kala qaybta la yiraahdo koonfur galbeed gobolada dhexe galmudug run ahaantii waxaan oran karaa gabi ahaanba kama jirin wax horumar ah yani waxbarashaan ka jirin la taaban karo horumarka bulshada waa liitay caafimaad ma jirin biyo ma jirin ma jirin institutionski dawladda oo loo baahnaa ka shaqayn maynin wax walba oo loo baahdo waxay ahayd in loo aado magaalada Muqdisho dabadeedna runtii dhibaatadii dhacday oo civil war-ku keenay waxay gabi ahaanba baabi'isay ummadii Soomaaliyeed maadaama aysan jirin meel kale oo loo noqonayo oo dhisan oo aan ahayn magaalada Muqdishona ay ahayd meeshii dagaalka sokeeyay oo halakeeyay oo dhibaatadii ugu weyneyd ay ka dhacday taasina ay sababtay gabi ahaanba dalku inuu burburo laakiin laga yaabo dalkaani haddii maamul qaybsan
iyo dhaqaalo mataqaanaa qaybsan iyo wax soo saar iyo mataqaanaa wixii loo baahnaayo dhan oo qaybaha dalka oo dhan ka jira hadday jiri lahaayeen inaysan burburka ummadda Soomaaliyeed soo wajahay inuusan heerka maanta uu gaareen marka waxaan qabaa si ummadda Soomaaliyeed u badbaado kuna kala badbaado in uusan ahayn oo kaliya mataqaanaa waxa loo baahan yahay laakiin uu lagama maarmaan yahay systemka federalism ada wato mudane waxaa tiri federaalku kelima ahan xal ee waa laga maarmaan sidaan ognahay awoodaha dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ma kala cado maadaama dastuurkii uu yahay qabyo waxaan ognahay in ciidamo federaal la geeyay gobolka Gedo una ka jiro khilaaf aad u ballaaran ma la is oran karaa nidaamkani ma aha nidaam u cuntamayo ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed runtii nidaamkii ay ku heshiisaa u cuntamaya nidaamkan federalismku sida aan ognahay waxa federaal ah wadamada adduunka ugu awooda badan dhinaca militariga waxa federaal wadamada dhinaca dhaqaalaha ugu awooda badan tusaale ahaan haddaan soo qaato wadamada Germany oo kale USA oo kale India oo kale dhammaantood waa federal Afrikada yani inta badan wadamadu waa federal system weeye federaalku ma xuma laakiin Soomaalida waliba haba u badnaatay dawladda federaalka xukuumadda federaalka oo hadda jirta waliba ayaad moodaa in markii horeba ajandadeedu aysan ahayn in ay dalka federalism ka hirgeliso ama uu ku sii socdo nidaamkii federaalka ahaa oo hore loogu heshiiyay ay iyadu dagaal kula jirtay waxay la tahay gobolka Gedo Soomaalidu maanta waa ka dharagsan tahay xaaladda uu gobolka Gedo ku jiro gobolka Gedo waxaa la oran karaa maamul federaal ah oo member state ah oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa waxaa ka furatay goboladiisii kamid ah dawladda federaalka oo maanta jirta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta jirta oo madaxweynaha ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa runtii gobol kamid ah gobolada wadanka oo maamul federaalka kamid ah oo xubinka ah maamulka Jubbaland ka tirsan isla maamulka laftiisii inta ka qabsaday oo xoog kaga wareegay haysta marka hadda lama dhihi karo ummadda dhibsatay iyo waa lagu dhibtooday waa waaqaca meesha yaalla waxa weeye dawladda ayaan runtii fulinin sharcigii u qornaa ummadda Soomaaliyeed kaasaana waxaa ka dhalatay in la isqabqabsado la diriro aad baad u mahadsan tahay mas'uul sare Axmed waxaynu ognahay in maamulka Jubbaland uu hareeyay tan iyo waagii la asaasay khilaafaad waxaynu ognahay in sidoo kale lagu hardamayo ama lagu dagaalamayo xaduudka beled xaawo Kenya iyo Soomaaliya iyadoon ognahay in ay maqan tahay gobol dhan oo Jubbada Dhexe ah maxaa sababay in beled xaawo lagu hardamo iyadoo la xoreyn karo Jubbada Dhexe run ahaantii waa waxyaabaha la yaab kale oo u baahan maanta in la isweydiiyo gobolka Gedo wuxuu ku jiray gacanta maamulka Jubbaland nabad baa ka jirtay reality waxa weeye Kenya inama soo weerarin dawladda Soomaaliya weerartay oo ka qabsatay maamulka Jubbaland laakiinse waxaa jira in tusaale ahaan uu gobol kale oo muhiim ah oo gobolka Jubbada Dhexe uu ka maqan yahay gacantii dawladda Soomaaliya iyo gacantii Jubbalandba waxaa jirta gobollo kale oo tusaale ahaan maamulada kale kamid ah sida gobolka Bokool oo kale oo gacantii dawladda iyo gacantii maamulka Koonfur Galbeedba ka maqan waxay ila tahay dawladda federaalku ujeedo gooniya bay ka lahayd gobolka Gedo cidda laga furtay oo laga qaadayna waa maamulka Jubbaland oo ah maamul ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya maamulada xubnaha ka ah mid kamid ah Kenya ma soo weerarin oo waxaynu ka warqabnaa dawladda Kenya ciidamadeedu waxay joogaan gobolada Soomaaliya gobollo kamid ah Amisom bay ku joogaan si sharci ay ku joogaan ciidan kale oo Kenya ay leedahay dawladda Kenya soo dirtay oo weeraray gobolka Gedo ma jiro wadankooda ay ku ekaayeen beled xaawo iyo doolo waxaa dawladdu ka qabsatay maamulka Jubbaland dawladda baana ka jawaabi kartay ila tahay sababta ay u qabsatay taa dawladdeenu u deynayna markii laga hadlo nidaamka federaalka ah
waxaa aada u difaaca ama isla mar ahaantaa ka hadla maamulka Puntland maxaa keli ku koobay Puntland inay difaacdo federaalka waxaan filayaa Puntland federaalka inay difaacdo waxa ku koobay wanaaga federaalku leeyahay bay Puntland dhamisay Puntland waxay kamid ahayd dalka Soomaaliya maamulkii Soomaaliyeed oo militariga ahaa oo dalka Soomaaliya u horseeday dagaalo badan oo isugu jira dagaalo shisheeye iyo dagaalo sokeeyaba runtii wuxuu Puntland ka geystay waxyeelo lama ilaawaana Puntland gobolada hadda Puntland la yiraahdo dhibaato maamulkii centralismka wuxuu soo marsiiyay dalka inta kale uusan soo marsiinin marka laga reebo Somaliland baan filayaa dawladdii qaranka ayaa gobolada tan tacaddi badan ka geysatay dhibaato badan ka geysatay ciidamadii qaranka waxa loo adeegsaday dadka inay laayaan dumarka inay kufsadaan ceelasha inay sumeeyaan oo dadka loo sumeeyo hantida dadka in tusaale ahaan dawladdu ay la wareegto ciidamadii qaranka loo isticmaalay inay dhulkan oo dhan iyo dadkiisaba cagta mariyaan dadkii gobolada tan ka soo jeeday dawladdu yacni waxay isugu dartay xarig iyo toogasho iyo dhac iyo dalkoo laga saaro iyo wax lamid ah yacni runtii waqtiga isaga ah qofka crime waxa ugu filayd ama inuu dambiile noqdo inuu ku dhashay gobolada tan mudug iyo nugaal iyo bari iyo wixii lamid ah oo kale tacadiyadaas dawladda Soomaaliya ay geysatay oo ummadda u geysatay dawladda militariga ahayd meeshii ugu horeysay ay ka bilowday waxyeelada ugu weyn oo ugu dhib badan oo ugu foolxun ka soo gaartay gobolada Puntland bay ahaayeen dagaalkii sokeeye oo xamar ka qarxay dadka gobolada tan ka soo jeeday yacni laba qaabba waa loo bartilmaameedsaday oo qaab xoogaa qabiilaysan maadaama Soomaalidu markaa qabiil iyo dhibaato qabiil iska jirtay iyo iyagoo markii horeba dawladdii waddanka haysatay dhibaato badan kala soo kulmay oo ay ku kacsanayd waxaa lagama maarmaan noqotay waagaas in dadkani ay isugu soo burtaan dhan walba oo ay dalka jireen yani tusaale ahaan waxaa laga yaabaa dad gobolada tan aan ka hadlayno u dhashay inay ku noolaayeen Kismaayo ku noolaayeen Muqdisho ku noolaayeen Marka Beledweyne Baydhabo Baardheere Luuq dhammaan gobolada koonfureed oo dhan inay ku noolaayeen dadkii ummadii noocaas ahayd oo dhan waxaa lagama maarmaan noqotay inay halkan isugu timaado goboladan dhexe iyo bari isugu timaado maamul ay dhisato maadaama goboladan runtii ay ahaayeen gobol dad maamulka horey ugu noolaa oo faham fiican u lahaa maamulka dhaqan traditional oo soo jireenana lahaa waxaa suurto gashay intii baabaa iyo burburka Soomaaliyeed u jiray isla markiiba halka maamul in laga sameeyo iyo kala dambeyn ayna muuqatay inay Soomaalida danteedu ku jirto deegaanada qolo walba deegaanka ay joogto inay hormariso markaasna dawlad loo dhan yahay la wada dhisto maamul daadajinna la sameeyo oo mataqaanaa gobol walba uu maamulkiisa hoose iyo state governmentkiisa isagu lahaado marka waxaan oran karnaa yacni Puntland runtii waxay dareentay ama dareensan tahay ummadda reer Puntland dareensan tahay federalismku in ummadda dani ugu jirto inay badbaadada ummaddu ku jirto in horumarka deegaanadu ku jiro Puntland gobolada tan markii dagaalka sokeeye Soomaaliya ka dhacay ma ahan oo kaliya in dadkii u dhashay ku badbaaday laakiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa badbaado u soo aaday oo ku noolayd waxa ku nool population maanta waxa laga yaabaa ku nool noqon doonaa faafintaas aad ka u dheer su'aalaha aan ku weydiin doonayna qayb ka tahay waxaynu ognahay in dawladda Soomaaliya ay dhismo ku wado ciidamada heerka qaran ciidamadaasi ma noqon doonaan kuwo u adeega hab federaal ah waayahay ciidamada Soomaaliyeed waa ciidamo Soomaaliyeed in ciidan ummadda Soomaaliyeed leedahay la dhisana waa wax wanaagsan waxa ay muuqata dawladda xukuumadda hadda jirta ciidanka qaran oo ay dhistay ama dhisayso inuusan ahayn runtii ciidan ummadda Soomaaliyeed oo dhani wadaagto hadalkaygii aan hadda ka hadlayay oo ahaa yacni dhibaatooyinkii ciidamadii Soomaaliya oo si khaldan loo adeegsaday ay ummadda Soomaaliyeed u geysteen waxyaabaha laga dhaxlay waxaa kamid ah inuu lumo trustigii iyo aaminkii lagu qabay ciidamada Soomaaliyeed
waxaa dowladdii militariga ahayd ay ku dhaqmi jirtay in ciidamada Soomaaliyeed qayb walba gobollada la geynayaa dad gobollada kale laga keenay oo aan gobolkaasi aqoon u lahayn oo ku xirnayn oo xiriir la lahayn la geeyo amar lagu siiyo inay tacadiye ka geystaan iyo dhibaatooyin ciidankii qaranka oo la jeclaan jiray oo tusaale ahaan dowladda centraalka ahayd meesha ka baxday wax cadeena uma hayno laakiin waxaan isdul taagaynaa nooca federaal ay Soomaaliya qaadanayso maadaama dastuurkii uu qabyo yahay noocmee kula yahay nooca federaal ay qaadanayso Soomaaliya horta federaalku nooc kasta oo uu yahay wuxuu isugu tagayaa inuu yahay isteydiyo ku midaysan isteydiyo mid walba uu leeyahay maamul heer isteyd ah kuna midaysan dawlad qaran waxay ila tahay dhan kastoo la eegaba waxay isugu tagaysaa inay Soomaaliya isteydyada maanta jira oo la og yahay oo heerka federaala la xoojiyo maamul rasmi oo isagu uu leeyahay loo sameeyo dadkiisu ay doortaan cidda maamulaysa tusaale ahaan dawladda dhexe aysan pressure iyo xoog iyo dhiig ay ku daadiso maamul ugu samaynin iyo mataqaanaa hanti qaran oo si musuqmaasuq loogu adeegsado dhismaha mataqaanaa maamul dawladda ay wadato oo iyadoo ay leedahay ee loo daayo ummadda iska leh deegaankaas oo u dhalatay dabadeedna maamulka qaran oo lagu midaysan yahay la wada yeesho marka dabcan de waxaan filayaa inuu intaas uu isugu imaanayo federalismka loo baahan yahay aad oo weyn mas'uuliyadda aan federaalka ku hakano waxaa jira in yani shir uu ka socdo magaalada Dhuusamareeb ay wada fadhiyaan federaalkii dawladdii federaalka ahayd iyo dawladihii xubnaha ka ahaa shirkaasi Dhuusamareeb ka socda maxay kula tahay inuu ka soo bixi doono wallahi shirka Dhuusamareeb ka socda waxaan filayaa wixii loogu talagalo baa ka soo baxaya haddii lagu talagalo in lagu heshiiyo oo maanta dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya ka taagan waxa weeye doorashadii wadanka baa dhici lahayd baynu ognahay xilliga aynu joogno laba maalmood baa ina ka xiga waqtigii loogu talagalay doorashada qaranku inay dhacdo oo madaxweynaha wadanka la doorto waqtiga madaxweynaha baarlamaankii wali la doorto laakiin waxay sheegayaan dadka siyaasadda doorasa in xilligii baarlamaanka uu dhamaadayba xilligii baarlamaanku dhamaaday waqtigii madaxweynaha la dooran lahaana ay laba maalmood ina ka xigto Soomaaliya waxa kaliya oo sanooyinkii dambe ay mataqaanaa shinsanaysay oo lagu faraxsanaa inaynu awoodnay siyaasad ahaan inaynu horumar ka samaynay wuxuu ahaa bal in doorashadu xilligii loogu talagalay ku dhacdo wadankana doorasho ka dhacdo waxaad moodaa waqtigii la filayay in horumar la sameeyo oo sidii la horay wadanku u ahaa laga sii horumariyo oo uu ka sii wanaagsanaado in halkaa dib u dhac weyni uu ka yimid waxaan filayaa ummadda Soomaaliyeed ceeb bay ku tahay dawladda Soomaaliya ceeb bay ku tahay in aynu gabno wixii kaliya oo aynu ku faraxsanayno inoo hirgalay oo ahaa wadanka balmar mar walba 4 sano walba ka bacdi in doorasho ay ka dhacdo beesha caalamku waa la yaaban tahay dadweynuhu waa la yaaban yahay haddii ay dhici weydo in wax la isla ogol yahay shirkaasi uu ka soo bixi waayo muxuu noqon karaa cawaaqibka ka iman kara cawaaqibka ka imaan karaa wuxuu noqon karaa cawaaqib runtii xun ummadda Soomaaliyeed waxyeello weyn u geysta si wanaagsan baan ku maqlayaa haddii ay dhici weydo in wax la isla ogol yahay uu shirka ka soo bixi waayo muxuu noqon karaa cawaaqibka cawaaqibku wuxuu noqon karaa runtii mid aad u xun mid siyaasiyan dhaawac weyn ku noqda ummadda Soomaaliyeed laga yaabo inuu burbur u horseedo dalka mar labaad siyaasadda iyo amnigu ay burburaan oo mataqaanaa dhibaato weyn ummadda Soomaaliyeed halka ka soo wajahdo waxaa dhici karta dawladda maanta jirta haddii ay waqti kororsi tusaale ahaan muddo kororsi ay samaysay inay noqoto mid aan cidina ku kalsoonayn oo aysan cidina u hoggaansanayn waxaa dhici karta in wadanka mataqaanaa buuq iyo amni darro ay ka bilaabato in xaaladii Soomaaliya dawladnimadii runtii soo iftiimaysay oo
hadda la filayay inay sidii hore kasii fiicnaanayso inay dib u burburto inay xataa keento dagaallo sokeeye iyo dhibaatooyin mataqaanaa runtii aan laga soo kabsan karin waa dhici kartaa aada weyn intaana gabagabada u imaanin waxaa jira midowga musharaxiinta in ay soo saareen qoraal ah in ay ka qayb galaan shirka dhuusamareeb ma ayna dhicin waxay haddana mar kale soo jeediyeen in loo baahan yahay shirka dhuusamareeb ka socda in laga qaybgeliyo dhinacyada bulshada iyo dadka doonaya xilka madaxweynaha sidoo kale waxaa muqdisho isna ka hadlay cabdi xaashi oo ah matalaha gobolada waqooyi dadka baarlamaanka ka imaanaya iyo aqalka sare maxay kula tahay dhinacyadaas hadallada ka soo baxaya oo dhag jalaq loo siinaynin waxay ila tahay ummadda Soomaaliyeed inteeda badan in systemka hadda jira runtii uu ku xadgudbay dawladda Soomaaliya waxyaabihii horay loogu heshiiyay waxay ahayd doorasho qof iyo cod inay wadanka ka qabato axsaab in la sameeyo musharaxiintan hadda sharaxan oo madaxweynaha dalka u sharaxani dhammaantood urur siyaasadeedyo bay runtii samaysteen oo gudoomiyayaal iyo musharaxiin u ahaayeen dawladda Soomaaliya uma aysan ogolaanin space iyo sharcigii ay mataqaanaa axsaabta ku hirgelin lahayd oo ay mataqaanaa afkaartooda ummadda Soomaaliyeed kula wadaagi lahaayeen lama siinin platform ay ka duulaan oo ay siyaasadooda ay mataqaanaa ku hirgeliyaan tusaale ahaan xaq bay u leeyihiin dadku waa musharaxiin madaxweynayaal bay u sharaxayeen madaxweynaha Soomaaliya loo sharaxan yahay kal hore madaxweynaha hadda haysta wadanka markii uu sharaxnaa sidaas oo kale arintu ahayd dadkii ku doodayay buu kamid ahaa inaan la siinin waa tahay waqtiga oo gabagaba inaga ah mas'uul Axmed hal iyo labo dawladdan xukuumaddan waqtigeedu labada maalin ka harsan yahay maxaa lagu tilmaami karaa oo wanaaga in ay qabatay muddadii 4 sano ahayd ay dalka joogtay wallahi xukuumadda hadda joogta waxaa lagu tilmaami karaa wanaag waxaan oran karaa inay xukuumadda wadanka ayada joogtay laakiin runtii waxaan anigu aaminsanahay waxyeelada ka badan ay geysatay wanaagii ay geysatay wadankan dhibaato badan bay dawladda hadda xukuumadda hadda jirta ka samaysay sharciga oo dhan baa lagu tuntay federalismkii baa la baabi'iyay dawladdu campaign anti federal ah bay bilowday markii ay wadanka qabsatayba maxaan ku iraahdaa gudoomiyihii baarlamaanka sharci darro lagu eriyay prime ministerkii baa sharci darro lagu eriyay gobolaha sharci darro lagu weeraray waa tahay waxaasoo dhan kolley bulshada Soomaaliyeed way ka diragsan tahay wayna og tahay waxaynu u imaanaynaa gabagabadii barnaamijkeennii waraysiga gaarka ahaa waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad ina siisay ugu dambeyn dawladda cusub ee dhowaan la filayo in ay dhalato ma kula tahay inay dhammaystiri doonto nidaamka federaalka ah oo ay dhammaystiri waayeen saddexdii madaxweyne ee u dambeeyey dawladdu haddii ay sharciga dalka u yaalla ku dhaqanto way dhammaystiri kartaa dabcan nidaamkii federalismka waaba nidaam diyaarsan member stateskii waa dhisan yihiin oo waa jiraan waxa keliya oo loo baahan xukuumadda wadanka haysataa in ay iyadu u soo jeensato inay dhammaystirto waxaan filayaa nidaamkaasi nidaam wax badan ka dhiman yihiin maaha member stateska waa dhisan yihiin habkii federalismka waa diyaarsan yahay dastuurka oo un dhammaystir u baahan iyo iyada oo si niyad wanaaga dawladda xukuumadda markaa jirta ay ku wajahdo ayaa waa tahay Axmed Cabdullaahi Cilaal kaasi waxa uu ahaa أحمد علي علال أو سياسي صوماليات أهنا لتليها مدحوينها سعيد عبد الله الدني إسلام رهانتا أنا حبين كا جلها دحية أورك سياسة كا بوتلان وأنا كجمع علن إن ورئيسي قاعدين السياسي مدني inta waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waraysiga gaarka ahaa intaynu dib ugu kulmi doono waa anigoo Jaabir Saciid Saalix oo idinkaga tagayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh